Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Aniga Cabdirasaaq Axmed halkaad naga daawaneysaan waa Cabdirasaaq Axmed official. Kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida shaashada kaga soo aragteenba qaabka loo verify gareysto account Instagram account aad leedahay, qaabkee verify looga dhigtaa, qaabkee tigta looga dalbadaa shirkadda Instagram-ka. Sida wada ognahay waxaa jiro dad badan oo tig loo saaray insaan oo kale, yacni in uu Instagram-kaaga account-kaaga oo tig saaran yahay. tigtaas buugta inay kuu saarmata ayaa loo baahan yahay. Marka qaabkaas loo request gareeyo oo looga codsado ayaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago. Marka koowaad waxaad kicinaysaa account-kaaga markii aad kicisid. Okay, datadan furinaynaa. account-kaaga markaad kicisid waxaad tagi doontaa qaybta setting-ka tagaysaa. qaybta setting-ka markaad ku dhufatid kadib waxaa kuu soo bixi doona profile-ka kuu soo bixi doona. Profile-ka markuu kuu soo baxo waxaad tagaysaa qaybtan oo saddexda dhibco waa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatid kadib waxaad tagaysaa settings-ka tagaysaa. settings-ka markaad tagtid waxaad kasii tagi doontaa account ku dhufan doonaa. account markaa ku dhufatid kadib waxaad kasii tagi doontaa request verification ayaad tagaysaa. request verification ayaad ku dhufanaysaa. waxaa kuu soo baxay meeshan apply for Instagram verification. apply garee Instagram verification ayaa kuu soo baxday. meeshan wuxuu kuu soo qorayaa qaybtan hoose submitting request for verification. wuxuu kuu soo qorayaa submitting request for the verification does not guarantee that your account will be verified. yacni anaga kuma ballan qaadi karno in haddii aad dalbatid ama aad apply gareysid in hore laga soo aqbali doono. yacni sida aad dareemeyno account-ka waxaa waaye markii aad request gareysid waxaa la sameynayaa, waxaa la yiraahdaa reviewing, dib in lagu review gareeyo oo lagu baaro kadib tigta lagu saaro. in lagaa soo diidana waa laga yaabaa. haddii lagaa soo diido kulley cilada jirto waa ku noqon doontaa, waana iska fiiri doontaa. wuxuu ku leeyahay username-ka ciwaanka ku isticmaashid kuu soo bandhigay. full name-kaada geliyo ku yiri. full name-kaada kale waa gelisay. markaad gelisid haddana now as waxa lagu yaqaano kale ama waxa oo maxaa la yiraahdaa caan ku taho kale. category wuxuu ku yiri select category for your account. category-gaada adiga qaybtee tahay, maxaa tahay macnaha, yacni dadka sports-ka qaybka ma tahay, ma dhanka siyaasadda, ma music, ma fashion, ma entertainment, waxyaalahaas qaar, ma business, maxaa tahay. anaga tusaale ahaan waxaan dhahaynaa others oo kale. others aan dhahaynaa. others okay waanu ogolaaday. others ayaa meesha nagu soo qormatay. wuxuu yiri please attach a photo of your ID. waxaa lagaa rabaa sawir ID card. wuxuu yiri sidoo kale we require a government issued photo. sawir dowladda oo kale macnaha haddii maxaa la yiraahdaa passport oo kale, maxaa la yiraahdaa national ID, driving license, waxaas oo kale ayagoo sawirkaaga ku cad yahay iyo maxaa la yiraahdaa taariikhda aad dhalatay iyo maxaa la yiraahdaa magacaaga oo saddexan ama magac kugu qoran. markaa sawir aad soo qaadaysaa haddii aad ID haysatid ama haddii aad passport haysatid sawir aad ka soo qaaday ama driving license haddii haysatid xataa sawir aad ka soo qaadi doontaa. choose file aad leedahay kadib wuxuu i geynayaa gallery-ga toos. tusaale ahaan aniga waxaan u baahanahay, aniga waxaan leeyahay tusaale ahaan aniga passport aan leeyahay. passport-kayga soo sawirtay waa kana. markaa geliyay passport-kayga inta waxaa isoo qormata sendiga data khafiif ah dad laakiin buluugtiga oo soo buuxsanta waaye. send ayaan ku dhufan doonaa. marka send ayaan ku dhuftay. wuxuu isoo qoray verification request submitted. waa dirsatay codsigaagii. we will let you know once we review with your request for a verified budget. yacni waan kula soo socodsii doonaa request-gaaga haddii la aqbalay iyo haddii kaleba. marka hadda wuu kuu sameysan yahay, waa verify gareysatay, waa apply gareysatay. waxaad sugi doontaa in tigtaas lagu saaro ama lagaa soo diido sababa jira awgeed.
waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan ugu talagalay in aan kaga hadlo qaabka verification Instagram-ka verify loo saarto. Kuma xirno in macnaha 2 milyan ay haysatid iyo inaad 100,000 haysatid iyo inaad 10,000 haysatid. Muhiimaddu waxay tahay inaad shuruudaha qofka lagu aqbalo verification-ka steps-ka hadda la marayo aad martid. Kadib badanaa dadka waxa lagu qabsadaa waxay tahay macnaha ID-ga ama baasaboorka waxyaalo macnaha aysan shirkadda ogoleen ama waxa oo maxaa la yiraahdaa uusan asaga lahayn oo iska gashtaa. Badanaa marka meelahaas oo cilada ka imaataa waa laga yaabaa inuu kuu diido, waa laga yaabaa inuu ku aqbalo. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Inta video wixii kala kulmi doono aan ku wada kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.